السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو دونيدا كجوجتان ولكن درس حسن محمد بيج كايغا داwan سوى درس قصو بيج اوفيشال sidoo kale kanaalkayga YouTube ka digala socon kara isla درس قصو بيج اوفيشال muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qiso ay la wadaagtay hooyo Soomaaliyeed maadaama aan anigu jeclahay inaan idin soo gudbiyo wixii ka jira bulshooyinka kala duwan ee dunida daafeega ku nool. muuqaalkan waxaan ku soo gudbin doonaa hooyo Soomaaliyeed sheeko yar ama qiso yar oo nafsadeeda ku dhacday oo ay la wadaagtay. qisaduna sida ay u dhacayso ayaan idin bilaabi doonaa. intaananu bilaabin sidii caadadeedu noo ahayd page-kayga like saar, sidoo kalena qaybta YouTube-kana subscribe dhe, gambaleelkana furo si ay kugu soo dhacaan waxyaabahan soo geliyo. mahadsanid. qisadani waxay ka dhacday waddanka Sacuudi Arabiya. hooyadani waxa ay sheegtay inay 2012 waddanka Sacuudiga taasoo ay isku barteen wiil Soomaaliyeed oo isaguna ku nool isla waddanka. kadib sheeko ayaa dhex martay labadooda oo waxaa dhex maray in ay isbartaan sida magacyadooda iyo waxyaabo kale oo ku saabsan. inankii iyo inantii runtii waxaa dhex maray jacayl aan la soo koobi karin, taasoo markii dambe uu wiilku ka codsaday ballinuun in ay soo afjaraan sheekadan socota ayna ku soo gabagabeeyeen inay iskursadaan maadaama in badan ay wada sheekaysanayeen, kaasoona u sheegin in waxaas hore ah iyo wax kale uu leeyahay oo ku dhahay waxaan ahay inaan iska caadiya. runtii gabadhii qalbigeygii ayuu jiitay, iyadayna runtii way ka aqbashay guurkii uu soo bandhigtay. kadib faamilkeega ayuu wacay 2013 guurkooga ayaaba dhacay. runtii waxay wada deganaayeen guri muddo 4 bilooda, taasoo ay sheegtay inay farxad aan la soo koobi karin iyo nolol wanaagsan ay u bilaabatay maadaama 4 bilood ay isqabeen. taasoo markii dambe aan ogaaday bay dhahday in ninkani uu xaas leeyahay, xaaskiisina ay Soomaaliya fasax u aaday muddo 6 bilooda. runtii arrinkii la yaab ayuu ila noqotay bay dhahday, umanaanan sheegin oo lamaanan wadaagin oo waxaan isdhahay iskaga aamusba. kadib waxaa ku soo noqotay gabadhii minweynka ahayd oo isagu qabay ee Soomaaliya fasaxa 6 bilood u aaday, taasoo maqashay arrinkan oo inuu guursaday gabadhan kale intii ay maqnayd. kadib qayliyo buuq iyo isjiidjiidad kadib ninkii wuxuu imaaday gabadhii isagoona ku dhahay walaalay waan kaa qariyay, xaas kale ayaan qabay, taasoo aan kaaga qariyay maadaama aan ku jeclaaday, quruxna ay kugu dhehnayd, sidaa darteed ayaan kaaga qariyay in aan xaas leeyahay. kadib bay dhahday dood ma sii wadi karayne uur 4 bilood ayaan leeyahay, xanuunkuna aad ayuu ii hayaa ee dhakhtarigee dood waxay noo dambaysay. kadib ayuu dhahay waxba kuma qaban karayo abaayo iga raalin. kadibna uu ku dhahay ilmahan iska soo rid, kaasoo ugu keenay dawo ilmaha ay iskaga soo rido. runtii hooyadu way la yaabtay ninkan waxa uu ku dhaqmayo, wayna ka diiday in ay iska soo rido ilmihii, sidaa ayuuna isagii kaga tegay. runtii hooyadii dhibkii waxa ugu soo darsamay dhib kale, taasoo ah inuu ninkii guriga iska lahaa ku yiraahdo gabadh yahayn iiga bax guriga maadaama aanad bixin karin kirada. iyadiina waa runoo ma shaqayso, mana awoodo in ay shaqayso maadaama ay tahay gabadh xaamila oona waxba dhaqdhaqaajin karin oo hadda 4 bilood oo xaamila ay tahay. kadib ayuu ku dhahay ninkii guriga lahaa wax iga galay ma laha ee alaabtaada iga saaro. kadib ninkii gurigii uu ka saaray, hooyadiina waxay soo istaagtay meel cidla ah, taasoo markii dambe xitaa dad asxaabta ay dharkii u geysatay. waxayna dhahday shaqo ii soo raadiya si aan u bilaabo shaqo. runtii iyadoo rafaad ka muuqdo ayay shaqo bilowday, taasoo ay uga leedahay inay iska dabarto lacagta umusha iyo wixii dhakhtarka ku baxay maadaama Sacuudi Arabiya qofku jeebkiisa dhakhtarka uu iska bixinayo ama hadday fool qabato. hooyadii runtii shaqadii ayay kortay oo habeen iyo maalinba waxay u shaqaynaysay dad caraba, taasoo uga dan lahayd inay bal ilmaheegan ugu hesho wax caafimaad ah ama umilin iyo wax nolol maalmeedkiisa. rafaad iyo shaqo kadib maasha Allah ilaahay hooyadii waxay dhashay gabartaas oo markii dambe uu ninkii damcay iga raali noqo iyo gabadhaydii aan soo arko, taasoo ay diiday oo dhahday markii aan kuu baahnaa waabadii diidee, hadda gabadhaydii kuma tusayo. muuqaalkan waxaan uga goon lahayn inay gabadh kasta ama wiil kasta uu mustaqbalkiisa ka fikiro inta uuna ku dhaqaaqin ama uuna guursamay, ama iyadu sidoo kale
ayna guursan inay xusho aabba wanaagsan oo ubadkayga daryeelaya, sidoo kale wiilkuna inuu xusho hooyo wanaagsan oo ubadkiisa u dhaqaalaysa. Muuqaalkan runtii waxaan kusoo gabagabayn doonaa intaa, waayo saameynta ugu badan waxay ku yeelataa kala tagga hooyadii iyo aabbaha ilmaha ay dhalaan. tanna waa ka hortag aan uga hortagino rag iyo dumarba inaan iska kaashano wixii xunna aanu iska ilaalino. waa anigoo ah walaalkeen Idris Xasan Maxamed oo idinkaga tegi doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.